haddii aad rabto isbeddel waad samayn kartaa, laakiinse waa goorma? waa 2 marba. Mar haddii aad rabto inaad isbeddel samayso, isbeddelkaagaasi waa mid ku jahaysan dhinaca nolosha inaad horumar ka samayso doonayso. Waa marka aad doonayso inaad noqoto qof ka duwan qofkii aad shalay ahayd. Runtii markaan tusaale ahaan kusoo qaato biyada aynu ku noolahay, daruuruhu inta aynay iman waxaa yimaada dabaylo. Dabaylahaasi waxay kaxeeyaan daruuraha midba meel bay ka keenaan, kadibna way isku daraan, kadibna halkaa waxaa ka dhasha oo Ilaahay awooddiisa ka samaysma roob meel aanay daruuri joogin ayay yimaadaan, kadibna way ku da'aan. Marka aad doonayso meeshii aad shalay joogtay meel ka duwan inaad timaado, waxaa loo baahan yahay inaad dulqaad iyo adkaysi u yeelato inta ay samaysmayaan, inta ay awoodismayaan, inta ay lugaha dhulka ku qabanayaan. Dadaalada iyo aqooneed cid ku dhisan tahay, midaasoo kaa saacidin doonta inaad noqoto qof ka duwan qofkii shalay. Mida kale, noloshu sideedaba kama maaranto inaad 2 mid aad samayso. Midaasoo kaa saacidi doonta inaad sida sallaanka hadba mid ku tallaabsato, sababtoo ah inta aan guriga la dhisin nashqadaa la dejiyaa. Midaasoo qofka ka saacida inuu noqdo qof ka duwan qofkii shalay u ahaa. Sidaa la jikada qofkuna inuu horumar sameeyo, kow waxaa ka horreeya inuu qorshe yeesho. Qorshahaasi waa midka fog iyo midka dhow. Haddii aad taqaano sida loo dejisto qorshayaasha dhow, waad samayn kartaa tallaabo kasta oo ku gaarsiinaysa qorshaha fogna. Laakiinse adiga oon aqoonin sida loo dejisto qorshaha dhow, ma saacidi kartid ama kuma tallaabsan kartid inaad samayso tallaabada labaad ee xigta ee qorshaha fog. Mideeda kale, markasta oo doonayso noloshaada inaad wax ka beddesho, waa inaad kow la tartantaa shalay qofkaad ahayd.